بسم الله الرحمن الرحيم. shaqooyin kale oo dhowr ah halkan ayaan israacin doonaa muddo kooban. hay'adda loo yaqaano daryeel deegaan oo ah ama daryeel deegaan company waa company bayskiisu yahay Garowe. waxay u baahan yihiin position ah general manager oo ururkaas ama companyga daryeel deegaan uu yeesho oo DDC baa la soo gaabay magaciisa Garowe Soomaaliya degan yihiin. daryeel deegaan marka waa urur company oo la aasaasay January 2015 si markaa wax uga qabto waste management services ka Garowe. shaqadan qofka waxaa looga baahan yahay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwan aan sheegi doono waajib ahaan. waxaa ka mid ah take lead in the general management of organization, coordinate business activities and work closely with the board of directors, implement strategic plans of the company's development yearly annual plans. sida inta badan qofkan wuxuu ka shaqayn doonaa uu qaban doonaa inuu markaa ururka ku liirgarayo maamul wanaagsan, inuu sidoo kale activity xagga businesska ah si closely ah ugala shaqeeyo boardka, iyo inuu hirgeliyo fuliyo strategic planka oo ah hanaanka ku shaqeeyo markaa lagu shaqeeyo. aqoonta looga baahan yahay waa bachelor degree xagga business administration ka, public administration ka, corporate management ka, accounting ka, project management ka. waxyaabahaas hadduu soo barto jaamacadaha waa laga rabaa. luqadana waa inuu ku fiican yahay, communicationkiisa waa inuu fiican yahay. 1 year baana shaqada marka hore bilowgeedu tahay sida ku qoran meesha. sida markaa qofkan uu apply gareynayo waxa weeyaan maxaa la yihahdaa email baa lagu diray shaqadan. emailka ku qoran maxaa la yihahdaa allahumma salli ala maxamed bay bartan maxaa la yihahdaa xagga ugu hooseysa linkskan soo dhigi doono insha allah. 15 February ugu dambeyn shaqada hala apply gareeyo hala xareeyo. shaqada labaad aan rabay inaan ku sii xigso waa UNFPA oo Garowe ah. Garowe waxaa ka bannaan UNFPA xafiiskeeda Garowe administrative finance associate baa ka bannaan. wuxuu xidhmayaa 15 February. shaqooyinka looga baahan yahay qofkan inuu qabto waxaa ka mid ah luqadda waa loo baahan yahay inuu si fiican uga hadli kara baa meesha lagu soo horreysiyey. waxaa jirta markaa duties laga rabo qofkaas. waxaa ka mid ah adapting procedures, anticipate the management operational requirements program, prepare and monitor administrative budget and ensure financial transactions in UNFPA. badan waa la garanayaa qofkii accountka systemka xisaabaad ku shaqeynaya standards baa jira la isticmaalo oo aan la dhaafin oo very important. marka insha Allah kuwaasna linkiskan soo gelinaya iyagoo qoran bay yaalaan oo qaran jobs ku jira. linkiska waa soo raacinaya qaran jobs. aqoonta looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu secondary level aqoontiisu gaadhay, laakiin waa arnimo fara badan baa looga baahan yahay qofkaas yeesho. waa inuu xisaabta ka sitaabaa lagu yidhi ACCA ama CBA asset somehow. luqadda ingiriisiga waa inuu ku hadli karaa, qori karaa. shaqadan hab online lagu xareysanayaa oo online baa lagu xareysanayaa. halkay ku qorta apply here baad ku qoranaysaa. marka taasi waa very important. waxaa kaloo loo baahan yahay UNHCR baa Hargeysa uga baahan receptionist baa Hargeysa uga baahan yahay. UNHCR uga baahan tahay receptionka waa garanaysaa no qofta soo dhaweynta xafiiska qaybta hore fadhiista. waa hay'adda qaramada midoobay qaabilsan arrimaha qaxoontiga ama waa guddiga qaxoontiga qaramada midoobay. shaqadani waxay dhici doontaa 13 February deadline-keedu yahay. badanaa hadda qoyskiina hadduu qof ka shaqeeyo looma baahna meesha inaad shaqato oo inta badan markay fargareen dadka familiga ah inay meel ka wada shaqeeyaan. marka qofkii u baahan inuu shaqada receptionka hablaha waliba aad loo sii dhiirigelinayay
UNHCR standards baa ladii policy dadka xagga receptionka badanaa qof waxa qurux badan markaad shaqo xarinayso principles kala akhristaa badanaa WFP principles UNHCR principles waxyaabahaas waa very important oo waxay ka caawinayaan inaad wax badan sii fahansanaato secondary education baa looga baahan yahay qofkan 3 sano hadduu aqoon leeyahay si receptionka meelaha kasoo shaqeeyey هذا قف كاس اللغة شاكا يقانا عربي وكلا يو أحمر وكلا أرمض حياة يقانا ولا سيح سنة بكاس يو أنا ساعات بدنا يا ودك قحتين ويا ما دوين تبغى كمان ولا سيح سنة بلي لكن شو هذا معنا وانترست بالولا اللي هي مركا شغلنا واحد كابل جران ساعة باي أول متقابل جران ساعة إذا نستهلوا قابل جرايو أو في قابل جران كرايو سيما consulting company سيما consulting engineers كانوا waxay rabaan assistant business developer bay rabaan hargeysa ka rabaan oo qolada sima group leedahay hargeysa ka rabaan marka waxay rabaan work closely with chief business development officer with the staff across the departments of the to implement growth strategies, cumulative strong relations with the new clients and maintaining existing clients. inta badan marka laga hadlayo business developer waa qofte istaraatiijiyadii meesha iyo imkaaniyaadkeedii horumarin kara sameyn kara good framework abuuri kara business management strategies and functions marka iyagoo fara badan oo qoran bay kuwan ku jiraan warbixinahani iyadana linkiska xagga hoose waan rajaynayaa insha Allah inaan soo dhigo hay'adda loo yaqaano Islamic Relief waa hay'adda إسلامية waxay u baahan tahay HR assistant Muqdisho u baahan tahay scope ka taqaana qofka HR ka inta badan shaqaalaha iyo arrimaha xafiiska iyo kontraagyada xafiiska iyo shaqaalihiisa iyo nidaamkaas iyo staff fileska iyo waxaas oo dhan bay HR ku qabtaa inta badan marka waxyaabaha dad ku fiican tahay aqoonta lagaga baahan waa 2 sano oo waayaranimo inaad yeelato way arrimadu waa very important kulli waa meelaha aqoonta rasmiga ah ka sii qaalisanba degree xagga inuu ka haysto HR ka jaamacadda ama wax u dhigma ama diploma HR ka uu sito administration ka ama administration ka shaqadan baa email lagu dirayaa CV ga laga rabaa oo update ah Somali National ID baa laga rabaa ama passport dad leedahay contract information oo 3 week later reference baa laga rabaa meelaha ku shaqeysay iyo xil hal maala marka Allahumma salli ala Muhammad qofkii marka uu shaqada xariisan kariya xariisto ba email la lagu dirayaa as soon as you can marka shaqooyinkan sahal loo balay garayo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh